عبسي واحد ثمانة غير عبسي واحد ثمانة غير وحنا عينك جرجر وحنا عينك جرجر وحنا جونا إركا يا مالك الساقة ترى عقبنا ما جوتي كرتو kulanti wacan daawadayaal halkani waa barteena YouTube-ka ee halbeega wararka qodobada xilligan aanu idiin hayno waxaa kamid ah dawladda Soomaaliya oo ciidan tiro badan geysay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo halkaasi ka socda ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland oo ka hortagay weerar qaraxyo ah oo ay al-shabaab qorsheynayeen inay ku weeraraan baaritaano lagu sameeyo ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Beledweyne iyo hogaankooda kadib weeraradii qaraxyada ah ee ka dhacay magaaladaasi qodobadaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo bartan YouTube-ka ee halbeega wararka subscribe inoo saar ugu horeyntii haddii aynu ku bilaawno gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cismaan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Beledweyne ayaa faahfaahin dheeraad ah waxa uu ka bixiyay qaraxii dhawaan ka dhacay magaaladaasi iyo khasaarihii ka dhashay Cali Jayte Cismaan gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sheegay in qaraxyada ismiidaaminta ah ee ka dhacay magaalada Beledweyne ay ku dhinteen dad ka badan 30 ruux halka ay ku dhaawacmeen dad tiro ahaan gaaraya 58 qof oo kale waxa badankood dhaawacyadooda loo soo qaaday magaalada Muqdisho sida uu shirkiisa jaraad ku sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan gudoomiyaha Cali Jayte Cismaan ayaa sheegay in qaraxyada ka dhacay magaaladaasi Beledweyne ay ku yimaadeen dayac amni oo ka yimid ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliska gaar ahaan taliyayaasha ciidamadaasi ee amniga u qaabilsanaa waxa uu sheegay gudoomiyaha gobolka Hiiraan in saddexda gaari ee magaalada ku qaraxday ay ka soo gudbeen buundada magaalada Beledweyne oo uu sheegay in ciidamadu ay halkaasi joogaan waxaana uu xusay in booliska iyo nabad sugidda shaqadooda ay gabeen isla markaana dayacaad dhanka amniga ah ay ku kaceen gudoomiye Cali Jayte ayaa waxa uu ugu baaqay madaxda dawladda federaalka ah ee Soomaaliya in tallaabo degdeg ah ay ka qaadaan labada taliye ee booliska iyo nabad sugidda u qaabilsan gobolka Hiiraan kuwaasi oo uu tilmaamay in ay shaqadooda gabeen kana jiifteen Cali Jayte Cismaan ayaa waxa uu dhanka kale sheegay in magaalada Beledweyne ay joogaan boqolaal askari oo isugu jira boolis iyo nabad sugid haddana magaalada dhibaato ay ka dhacayso waxa uu digniin u diray shacabka guryaha ka kireeya al-shabaab iyo sidoo kale kuwa la shaqeeya kooxdaasi gudoomiyaha gobolka Hiiraan oo caro badan ay ka muuqatay wajigiisa ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in ay u soo jeesanayaan sugidda amniga magaalada Beledweyne waxa uu cadeeyay in magaalada ay ka saarayaan ukumaha al-shabaab oo uu ula jeeday caruurta iyo xaasaska ragga ka tirsan al-shabaab ee magaalada ku sugan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaan la ogeyn sida ay uga jawaabi karto baaqa gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee ah in tallaabo muuqata xilka qaadis ama ciqaab kale ay ku sameyso taliyayaasha ciidamada booliska iyo nabad sugidda ee ka howlgala magaalada Beledweyne iyo guud ahaan gobolka Hiiraan dhanka kalena ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa dawlad goboleedka Jubbaland ayaa waxay ka hortageen weerar qaraxyo ah oo ay al-shabaab qorsheynayeen inay la beegsadaan wararka aanu ka helayno gobolka Jubbada Hoose ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in maanta ciidanka Jubbaland ay fashiliyeen qarax miino oo ay al-shabaab qorsheynayeen inay ka geystaan degmada Afmadow ee gobolkaasi ciidanka daraawiishta dawlad goboleedka Jubbaland oo garab ka helaya ciidanka dawladda Soomaaliya oo howlgallo amni xaqiijin ah sameeyay ayaa ka hortagay qaraxaasi oo lagu diyaariyay suuqa xoolaha ee degmada Afmadow waxa ayna ku guuleysteen ciidamada inay qarxiyaan miinadaasi iyadoo aan geysan wax khasaare nafeed ah saraakiisha ciidanka Jubbaland oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen in ujeedka kooxda al-shabaab uu ahaa in ay qaraxaasi ku dhibaateeyaan dadka shacabka ah iyo ganacsatada ku sugan suuqa xoolaha ee degmada Afmadow sidoo kale waxa inta ku dareen saraakiishu inay xog ka heleen dadka deegaanka taasi oo suuro gelisay in miinada ay soo saareen ciidamada ammaanka kadibna ay qarxiyeen Jubbaland ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday in ciidamadu ay weli wadaan baaritaano kale si looga hortago weeraro qaraxyo ah oo ay suuragal tahay in al-shabaab ay ka fuliyaan deegaanadaasi howlgalladan ay wadaan ciidanka Jubbaland iyo kuwa dawladda Soomaaliya ayaa waxa horay sidan oo kale loogu fashiliyay qaraxyo miino ah oo ay kooxda al-shabaab ku aaseen duleedka magaalada Kismaayo kuwaasi oo khasaaraha ugu badan ka soo gaaray dad rayid ah ee ku socdaalayay wadooyinkaasi muddooyinkii dambe ciidanka Jubbaland iyo kuwa dawladda dhexe ayaa dhaqdhaqaaqyo ka wada gobolada Jubbooyinka gaar ahaan magaalo xeebeedka Kismaayo oo iminka lagu diyaarinayo ciidamadii ugu badnaa oo loo qorsheeyay in ay ka howlgalaan ama howlgallo weerar ah ay ku qaadaan deegaanada Jubbooyinka oo ay gacanta ku hayaan ururka al-shabaab dagaalamayaasha ururka al-shabaab ayaa waxay wajahayaan weeraro ka dhan ah kadib markii qaar ka mid ah dawlad goboleedyada iyo ciidanka deegaanka oo isgarabsanaya ay weeraro dhowr jiha ah ku qaadeen dowlad goboleedka Jubbaland ayaa dhawaan waxa ay shaaciyeen in ay fadhiga ka kici doonaan isla markaana muddo 8 sano ah kadib ay ciidamadoodu ka bixi doonaan dhufaysyada ay ku jireen
dhanka kalena dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ciidan hor leh waxa ay ka dejisay magaalada Beledweyne. wararka aanu ka helayno gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in maanta dowladda Soomaaliya ay ciidamo hor leh u dirtay gobolka Hiiraan oo iminka laga dareemayo xaalad amni kadib qaraxyadii Isniintii aynu ka soo gudubnay ka dhacay magaaladaasi Beledweyne ee gobolka Hiiraan. ciidamo ka tirsan kuwa commandoska Gorgor oo diyaarad looga qaaday magaalada Muqdisho ayaa goordhow waxa ay gaareen garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada Beledweyne sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo oo dhanka amniga ah. sidoo kale saraakiil ka tirsan qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka gobolka Hiiraan ayaa ciidamadan waxay ku soo dhaweeyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada Beledweyne waxa ayna u mahadceliyeen madaxda dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya. wararka qaarkood ayaa waxay sheegayaan in ciidamadan oo aad u qalabeysan loogu talagalay inay ka qayb qaataan howlgallada dib u xoreynta ah ee ka socda gobolka Hiiraan. waxa ayna xoojin doonaan baaliyari ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ee macuusleyda loo yaqaano ee ka howlgalaya halkaasi. sidoo kale wararka qaarkood ayaa waxay intaasi ku darayaan in saacadaha soo socda ciidamo kale laga dejin doono magaalada Beledweyne si duulaan loogu qaado deegaanada ay haystaan dagaalamayaasha ururka Al-Shabaab. si kastaba ha ahaatee gobolka Hiiraan ayaa waxa uu xudun u noqday kacdoonka ka dhanka ah dagaalamayaasha kooxda Al-Shabaab kaas oo deegaano hor leh laga qabsaday kooxda isla markaana lagu gaarsiiyay khasaare xooggan. ciidamada dowladda oo garab ka helaya kuwa deegaanka ee macuusleyda ayaa waxa ay dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay howlgallo saf balaaran ah ay ka wadeen qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan waxaana kacdoonka gobolka Hiiraan ku soo biiray gobollo kale oo ay ka mid yihiin Shabeellaha Dhexe, Galgaduud, Bakool iyo qaybo kale oo ka mid ah deegaanada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Jubbaland oo iminka abaabulkii ugu dambeeyay halkaasi ka wada. dowladda Soomaaliya ayaa horey ciidamo ka tirsan waxa ay u geysay commandoska Gorgor iyo Haramcad magaalooyinka Beledweyne, Dhuusamareeb iyo sidoo kale qaybo ka mid ah gobollada dalka. ciidamadan ayaa markii hore waxa uu qorshuhu ahaa inay sugaan amniga magaalooyinka balse iminka ayaa waxaa loo jiheeyay qaab kale iyada oo weeraro iyo sidoo kale xoojinba ugu tagaya ciidamada furimaha ku sugan. dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa waxay markan bedeshay siyaasadii hore ee ahayd in ciidamadu amniga magaalooyinka ay sugaan isla markaana lagu weeraro siyaasiyiinta ka aragtida duwan waxaana markan loo jiheeyay dagaalka kooxda Al-Shabaab kuwaasi oo markii horeba dagaal kula jiray dowladda Soomaaliya iyo ciidamada shisheeye ee taageera. ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isgarabsanaya ayaa waxay muujiyeen awood dheeri ah waxaana meesha ka baxday ku tiirsanaantii ciidamada shisheeye sida kuwa AMISOM waxaana kaliya ciidamadan taageero ay ka helayaan dhanka cirka oo ay markaa garab ka helayaan dowladaha Mareykanka iyo Turkiga kuwaasi oo xogaha iyo duqeymaha ka taageeraya ciidamada dowladda Soomaaliya ee howlgallada ka wada qaybo badan oo ka mid ah gobollada Hiiraan, Galgaduud, Jubbooyinka, Bakool iyo Baay iyo sidoo kale gobolka Shabeellaha Dhexe. guud ahaan daawadayaal wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya oo aan xilligan idinla socodsiinaynay halka ayaanu jeclahay inaan ku soo gabagabayno. haddii aad nagu cusub tahay fadlan ku soo biir barteen YouTube-ka adigoo subscribe inoo saaraya channelka Halbeegga Wararka, muuqaalkan like saar oo la sii wadaag saaxiibada. aad baad ugu mahadsantahay inaad nala socoto oo aad ka mid tahay saaxiibada halkan nagula socda.